السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مقال كله عصب. وحنا أنت مقال كنا نكويك دونا تاريخ ذا ميل أنتي نبدنا تغانين ميل ضد بدن نلاش هذا بده شيء. هذا نقطة قان هان يولي بالدخل هان ميل ضد بدن أجعلان لهاين إن نلاش هذا وحكى بده شو أما يسبدل كسم يسو ميل باهن تدخل عبور له ميل كلامها وشركة ده يوتيوب. حنكويك دونا مقال كنا مرحلة دي سومرت شركة يوتيوب حتى الفكرة دي يكون بلا مطي الله يا بدونته. intaynaan muuqaalka ugu dagalin hadii ay tahay markii ugu horeysay soo booqato halkan waxaan ku leeyahay soo dhaw subscribe saar channelkan like muuqaalkan sidoo kale hal comment iyo caafimaad qaba noogu reeb qaybta faallooyinka Facebook hadda naga daawanayna sidoo kale inta in leeg insha Allah soo dhawaada YouTube waa kan labaad ee loogu booqashada badan yahay dunida marka laga yimaado macalinka weyn ee Google طبعا markaan ku leeyahay macalinka weyn ee Google dadiyoob wax badan baray YouTube waa mid kamid ah platformyada ugu caansan dunida waana kan lagu garan og yahay internet ka muuqaalada lagu soo gudbiyo waxa lagu qiyaasaa dadka bilaha isticmaala in ka badan 2.6 bilyan oo qof oo dhagatan dadka dunida ku nool 3 meelood meelba bil waliba isticmaasha waxa la daawadaa in ka badan 4 bilyan oo saacadood bishii waa qiyaastii 5,479,446 milyan oo bilood ama haddii aan sanad u bedelnana 456,621 sanadood halka daqiiqo waxa lagu soo gudbiyaa in ka badan ama la soo upload gareeyaa in ka badan 400 ساعات شركة يوتيوب وحاساسي صدق الأنيرة وكلاء جاد هارلي ستيف جين جويد كريم وكم ده شغالة شركة ده بايمنتس كقابلسان بايبا وحياة أساسين أفريت فبراير إلا بكون يشان يا أمان تشعل كدونك أمان تشعل كدونك أمان تكتب الأمان أمان تشعل كدونك شركة يوتيوب لو سمي وحوها شكانس Stop it. سيدي صور كان لايك صور كان هذا أكيد يعني يوزر نيم باسورد كوست هذا ميل يقول يعني قف كرادين النوعية هي يو إيج مركا واسكعده وسكرينش laga qaaday markii la asaasay YouTube waxaana ugu talagaleen in la soo geliyo videos oo qofku kaga hadlayo ama kaga sheekeynayo inuu raacada ku jiro ama qofkiisa raadinayo laakiin fikirkaasi ma sii socon inta kadib waxa loo bedelay in qof waliba wuxuu jecel yahay soo geliyo taa uu sheegay Steve oo kamid ah asaasayaashii YouTube bishii shanaad 2005 waxa tijaabo dhanka internetka la mariyay YouTube isla bishaan waxa YouTube la geliyay video ugu horeeyay ee YouTube la soo geliyo waxa laga yaabaa inaad isweydiiso talo video ama laga helayaa YouTube dabcan video ugu horeeyay oo muuqaalkan mid kamid ah dhalinyarada asaastay YouTube magaciisu waa Jawid Karim oo ku sugan beerta xayawaanada muuqaalka hadaa rabto inaad raadisan ciwaankiisa waa kan Miadazu waana ka ugu horeeyay ku soo bixi doona insha Allah kadib markii YouTube ka soo baxay tijaabada internetka muuqaalka ugu horeeyay 1 milyan gaadhay waxa uu gaadhay bishii 9aad isla sanadkii 2005 waana muuqaalkan oo ah ciyaaryahanka weynaa Ronaldinho oo shirkadda Nike guddoonsiinaysa kabadahaba waana xayeysiintii ugu horeysay ee YouTube la soo geliyo halka shirkadda Nike ay tahay kadib ugu horeysay xayeysiin YouTube ka soo gelisay inta wixii ka dambeeyay YouTube waxa mid aad u sii korayay ilaa uu gaadhay kana maanta iga daawanayso وكان أنا يوتيوب كذا ونيو sorry إذا فيسبوك نواجر لكن وأنا سكنت على الله إنه يوتيوب كان صوب وقتين أويسيس bishii tobnaad 2006 shirkadda Google waxay ku iibsatay shirkadda YouTube qiimo dhan 1.65 bilyan oo dollarka Mareykanka xilligan waxa ka shaqeynayay 65 qof oo shaqaale ah inta wixii ka dambeysay waxa sida YouTube kula wareegtay shirkadda Google kadibna way sii horumarisay haddaba waxa laga yaabaa inaad isweydiiso goorma dadkan meesha ku jabay lacag laga sameeyay YouTube وكان ما بقينا lacag laga sameeyaa lacag waa laga sameeyaa waliba tan aad shaqada u aado mid ka badan ba laga sameeyaa laakiin dadaal iyo badan ba ka sokeeyay taa micnaheedu ma inaan ku niyad jabinayo laakiin dadaal bay rabtaa hadii aad slow tahay YouTube waxa laga maqlaan isku dhawaa May 2007 YouTube waxa lagu soo kordhiyay waxa ku tilmaamaan YPP oo dadka hal abuurka leh lacag ka sameeyaan fiidiyoada ay sameeyaan markay soo galiyaan YouTube dad badan oo hal abuur lahaa oo muuqaaladooda lacag sameyn jiray ayaa markan helay fursad ay lacag ka sameeyaan hal abuurkooda waxayna noqotay in qof walba wax soo gudbin kariya ama hal abuur lahaa oo halkan YouTube iska soo xaadiriyo si uu halkan ugu soo bandhigo oo sameeyo dakhli ku filan kana badan kana u boorsada u qaato subax walba una shirmaadayo lagu qaylinayo wax walba uu ka marayo muuqaalkina maanta intaas ku saabsan yahay waxaan rajaynayaa inaad xogaa ka ogaatay meel aad in badan booqan jirtay haddii aan ku su'aalo kaalin noocee ah YouTube ku yeeshay noloshaada ama ku yeelan doona. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.